anigu waxaan idin sheegayaa waa rag igu horreeyay baa hadalkii dhameeyey waxaan idin sheegayaa shir yaroo waaweed ka dhacay shir ka dhacay ma yarayna shir xoog badan oo ogaadeen ka dhacay aan warbixinta siinaya waxaa laga yaabaa qaarkiina maqleen qaarka aan maqalla waxaan uga digayaa inayna la yaabin maxaa yeelay shirkaasi wuxuu dhex maray qoliyo aynaan uga baranin weli inay shiraan oo talo waa maxay waxa weeye waxaa shiray xoolaha ogaadeen oo qayba iyo dhulka ogaadeen in la yidhaaho jugraafi ahaan oo isna qayb oo gooni u fadhiya iyo carruurta ogaadeynaya u dhalata oo kuwa bannaanka yimid maaha kuwa dhulka ku jira saddexdaa qaybood ayaa shir isugu yimid kolkaan idiin faahfaahiyo waa fahmi doontaan inay waxaasi wax jira yihiin waxaa laakiin laga yaaba qaarkiin inay sheekadu xitaa aad uga daadeg weydo xoolaha ayaa ku horreeyey hadalka intaba dhib waxaa la dheriga maxaa ka keeno karka waxaa la kuleylka wuxuu hadduu rafaado oo hawsh ka badato oo adkaysto oo samro laakiin ay dhammaan weydo wuxuu ku khasban yahay inuu tashado oo wax isweydiiyo oo xal raadiyo marka hadalka waxaa ka horreeyey xoolaha waxay yidhaaheen oo calaacalkooda iyo sheekadoodu ahayd waxaan annaga 150 sariya in ka badan yaan ogaadayna joogay dhib badan baan qabnay waxaa makhraati ka tihiin xooluhu dee waxay ku nool yihiin cashinta ama cawska waxa loo yaqaano iyo biyaha marka waxay makhraati ka tihiin axmaaradu inta ceelasha fadhiisato ay xoolaha ogaadayna ka cabbaan inay tahay wax soo geli karaa mid bataataba oo xoolaha oo xoolihii soo aroorayey iyo wixii usoo meesha ka ceelhayey intaba intii dib loo celiyo xoolo oo mara soo arooray oo ceel laga celiyey qofkii fahmaya waxaa min qaarkii meelaha u dhasheenay qofkii fahmaya waxaa weeye dee gobol kale ama magaalo ama ceel kale haddii loo arooriyo dhibka gaadhaya oo weliba xoolaha tabarteed sida arig iyo lood iyo wayba baaba'an ceelashaas intaasoo sano iyo intaasoo qarni yaa ceel fadhiisiga aan ku jiro axmaara naga fadhiday cawska ninkii yaqaana jiidaalka xilliga la yidhaha ama xagaaga weliba xilliga xagaaga dadka u taco meelaha cawsku aadka uga baxo sida sibir ayuu ninka yaqaana dabbay sugaan axmaarada ciidanka meelaha suga dab suga dabkaasi ma baktiyo xagaaga dhan intuu afkaa ka soo galo waddan ilaahay og yahay waa dabayn waa xagaaga dab iyo afka looga baxa labadaasay awal qabeen waxay tu saddexaad iyo hadda nagu soo biirtay oo awal aan ka roonay waa maxay barnaamij waxay samaysay iyad bay la yidhaaho xoolo dhaqata beeraley oo laga yaaba inaad inka erayga u maqashaan laakiin macnaha laga leeyahay inaan dad badan fahmin oo macnahiisu yahay xoolo dhaqata beeraley waxa weeye in dadka meel la isugu keeno xoolahana la dul keeno xoolo marka maxay sameeyeen xoolaha ogaadeen waxay ku nool yihiin way guuraan way hayaamaan hadda meesha daaqu raacaan roob ka doy raacaan haddii la yidhaaho hal meelaa la isugu keeno halkaan baa lagu hortaagnaa maxay samaynayaan 10 sano ama 15 sano kabacdi waa suulayaan se u dhammaanayaan abaarta u laynaysa ile beer baa lagu dul ooday abaare roobkuna hadda meel buu maraa taasina way hadda nagu cusubtay waxa iyaga soo degdegsiiyey ayaa ka mid xoolihii doodooda halkaasi mariyey waxaa hadlay ciyaalka ogaadaya ee caloosha ku jira si aad u ogtiinba dadka in badan ba waxaad ka maqashaan ama meelaha dadka faallada ooyinka ilmuhu wuxuu dhashaa isagoo xora oo maxaa laga wadaa ilmuhu af kale ma yaqaano hadal kale male caqli kale male wax kasta oo uu dareemo wuxuu ku muujiyaa oohinta saad u dhasho hadda waa isagoo hooyada hadda ka dhashay iyo oohinta bilaabaa marka meelihiina waxaa min tuulada ku dhalatay magaalooyinka dadka baadiyaha hooyada ogaadaya jirtay baadiyaha ku dhalataa ee ku dhashaay ilmaha yar markuu ooyo hooyadu ilmaha way u heesaan way la sheekaystaan way la hadlaan isagoo hadal kala gaadhay waxay ku sameeyaan waxay yidhahaan markuu habeenkii ooyo waxay ku yidhaahaan aamu hooyo waxayna soo maqlin ama ina soo raacay xabashida way xasuusan doontaan rag fahmaya baashii goorati ku dhashay waa fahmaya in isaga lagu soo yidhi aamu hooyo xabashida ayayna soo raacisay marka kii bannaanka yimid nasiibkii laakiin kii uurka ku jiray ayaa talada u taallaaday oo ninka walbahaarsan waa ninka dhulka ay soo haray dhulku weliba isagu ka daran yahay wuxuu yidhi wax alla waxaasoo dhiba iyo waxa aad sheegaysaa
iyo calaaca iyo baroorta horta aniga dushaydan baa lagu sameeyaa mar haddii dushayda lagu samaynayo dee dhibka waa in la qabaa waxbaas ay dheer idinku waxaad leedahay rajo xoolahana waxaad u tegi weydeen ood meelaha kan iyo wadamada sida meelaha u aadi weydeen ogaadina way xoroobi oo deedna kolkaasaad heli doontaan waxaad raadinayseen carruurtana waxay weligii baahan leedin aaminsan xoolaha la qaba waxaad dhahay mar boodaalina xoroobi oo aad ooyi doontaan dhulkii wuxuu yidhi aniga waxaa iga dara waaban iska adkaysan lahaaye axmaar kasta oo la dilo oo gobonimo doonku dilo dhulku baa lagu aasan oo gooro yaa rag waa idinka daranahay dacwadaydu waxa weye waa idinka xun tahay meel aan ciirsado male waktigooda baa igu jira way ballameen marka hadda iyagoo dhegaysta way ballameen shir kale anigu xilli uu dhici doono mayna sheegin laakiin waxay yidhaaheen shir kale aan isugu wada doona insha allah oo 100 sana 50 sana ama 10 sana ma garanayo shirkaa waxaa ka soo qayb geli doona geedaha waraabaha ugaadha iyo dadka oo inaga dadka ogaadaya ku nool oo inaga yaa ku warjooga daruuri oo ku qoshaha leh marka waxaa laynaga rabaa eeg shirkaasi waxaa laynaga rabaa walaalayaal shirkaa waxaa laynaga rabaa inaan ilaa haddii ilmuhu kuga hadlo urka ku jira ama uu kuga hadlo xooluhu waa mucjiso waa masiibo waxaastuu kuga hadlo masiibo weyn waxaa laynaga rabaa inaynu ka hor tagno inaan shirkaa laynagu yeedhin eeg hadda shirkaa haddaan sugno waa inoo doqonnimo waa inoo xumaan waa kala dhaqaaq qiyaami baan malaynaa haddii dadkii dhulkii nagu hadlaan qiyaaman taaganahay marka inta ka horraysa ay ballantaa ay ballameen inta ka horraysa ogaadina waana xoreyn insha allah